gacanka hodanka ah magaalada Qandala waa magaaladii qarniyada horteed camirnayd goob ay ka muuqdaan raadad dahab ah oo ku xirdhan xeebaha bari ee Soomaaliya magaalo martigelisay ganacsiga Carabta la macaamishay faraaciintii Masaarida iyo Roomaankii qadiimiga ahaa magaaladii dunida bartay badda Soomaaliya Qandala ilayskii ka muuqday badweynta Hindiya ee muujiyay tilaabada Soomaalidu ku lahayd ganacsiga siyaasadda duruufaha iyo juqraafi siyaasadeedka gobolka geeska Afrika haddii aad nagu cusub tahay juqraafi ayaad igala socotaan madal lagu soo bandhiga tagtada iyo taariikhda Soomaalida bogo hubi inuu falow ku yahay soo dhawo mar kale 75 kiiloomitir ayay Qandala bari ka xigtaa Boosaaso waxayna ku taalaa xeebta badweynta Hindiya gaar ahaan waqooyi bari ee Soomaaliya waxay u dhowdahay buuraha Calmiskaad oo ka tirsan silsilada buureedka Golis magaaladu waxay ka alkumantay goob istiraatiiji ah oo muran muhiim ah u ahaa isku socodka ganacsiga Afrika Carabta iyo Aasiya waxay leedahay dekad dabiici ah oo u muuqata bacraar yar oo badda sii galaysa buuraha ku hareeraysan waxay siinayaan difaac iyo hoy dabiici ah halka badda horteeda ay u ahayd wadada nolosha iyo kobaca dhaqaalaha reer Qandala cimiladeedu waa kulayl dhul qalalan oo dabaylaha badda neecaw laga sugo Qandala waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu faca weyn ee taariikhda Soomaalida waxaa ku nool dad tiradooda lagu qiyaasay 25,000 oo qof buugaag badan oo ilbaxnimooyinkii hore ee dunida ka hadla ayaa tilmaamay in Qandala ay jirtay xilligii faraaciinta Masar waxay ahayd meel uu ka socday ganacsiga macdanta ibaaruudka ee loo yaqaan afka qalaadna Franki Instant iyo agabyada kale oo aad loogu baahnaa xilliga ganacsatada Carabta reer Hindiya iyo boqortooyooyinkii Masar waxay dhamaantood xiriir ganacsi la lahaayeen reer Qandala dhismayaasha qadiimiga ah ee Qandala waxa uu caansan oo marka aad Qandala tagtaba arkaysaa daarta cad oo ah dabaq saddex isu dul saaran oo xilli hore halka laga dhisay Qandala magaaladii Fooxa ee Soomaaliya Fooxa iyo uduga Qandala laga dhoofin jiray waxay ku jireen sarifkii ugu qiimaha badnaa ee dunida xilligoodii dhanka kale ciidamada ajaanibta sahmiyeyaasha iyo ganacsatadu waxay Qandala u yaqiineen inay ahayd xarun ganacsi oo heer caalami ah iyaga oo mararka qaar sharaxaadooda ku xardhay buugaagta cilmi baarista waxaa sidoo kale Qandala ay xiriir la yeelatay magaalooyinka qadiimiga ah ee dunida magaaladani waxay ahayd meel ay isugu yimaadaan dad kala dhaqamo iyo kala asal ah ganacsato Carbeed dad Afrikaana Hindi iyo Yurubiyan ayaa Qandala ku noolaan jiray qaarkoodna waxayba ku nagaayeen muddo dheer Qandala waxay ahayd hoy aqoon badeed lagu barto dadkeedu waxay barteen xirfado aad u horumarsan oo la xiriira samaynta doonyaha aqoonta xidagaha oo ay u adeegsan jireen safarka badda iyo aqoon sare oo ay u lahaayeen dabaylaha iyo khadka badda iyo sida dabayluhu ula shaqeeyaan ganacsiga badda markii gumaysiga reer Yurub qabsaday Afrika Qandala waxay noqotay meel istiraatiiji ah oo uu Talyaanigu isku dayay inuu xarun ka dhigto waxay soo martay duruufo adag oo siyaasadeed dhaqaaluhu hoos ayuu u dhacay dekadii qadiimiga ahayd waa howlgab shaqooyinkii ganacsiga ee baddu waa hoos u dhac xornimadii kadibna dad badan oo reer Qandala ah ayaa u kala boqolay magaalooyin kale halkii ay ahayd inay magaaladooda maalgashadaan dekadii iyo kaabayaasha dhaqaalihii ee Qandala waxay isu bedeleen waxaan jirin oo kale Qandala waa magaaladii raadka ku yeelatay taariikhda badeed ee dunida waa meel ay ku caddahay in Soomaalidu ahaan jirtay dad kaalin weyn ku leh dunida dhaqaalaha siyaasadda iyo aqoonta ee caalamka maanta inkasta oo yar tahay magaaladani oo aysan gaarin magaalooyinka waaweyn haddana waxay leedahay muhiimad taariikhi ah oo u qoran ardayda dadka xiiseeya taariikhda iyo dalxiisayaasha dalka ku sugan Qandala ma aha oo kaliya magaaladii Fooxa waa astaanta cad ee muujinaysa in Soomaalidu ahaayeen dad caalamka la lahaa xiriir buuxa qarniyo badan ka hor ilays laga sugayo inuu mar kale iftiimo hadday intaasiba tahay Qandala haddaba maxaa dhafoorkan u yeelay magaaladu ma laha waddo laami ah oo aada taasina waxay caqabad ku tahay isu socodka ganacsiga iyo dadka magaaladani weligeed ma yeelan maamul u daacad ah oo daneeya horumarkeeda waxaana taas daliilku uga ah in ina muumin iyo kooxdiisa oo aan tiro badnayn ay mar kaga dhawaaqeen Qandala inay aasaaseen kooxda Soomaalida u qaabilsanayd nimanka buuraha lagula dagaalamay dadka u dhashay magaalada Qandala waxaad moodaa inayna diyaar u ahayn horumarinta Qandala gaar ahaan adeegyada laga maarmaanka u ah Qandala waa madaxaf Soomaaliyeed oo ay ahayd in loo dadaalo laga warqabo dadkeeduna ay u hagarbaxaan si Soomaalida kale ay ugu dhiiradaan inay maalgashadaan nabaadiino